ku soo dhowaada barnaamijka Hiil Walaal oo aan idinku soo gudbino wararka iyo warbixinada ku saabsan dadaalada howlgalka Midowga Afrika ku taageero dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Qodobada aan idinku haynana waxa ka mid ah wafdi ka socda AMISOM ayaa booqday dawlad goboleedka Galmudug si ay u qiimeeyaan u diyaargarowga amniga doorashada. ciidamada AMISOM ayaa lagu ammaanay taageerada howlgalka wadajirka ah ee dawlad goboleedka Hirshabeelle. iyo madaxa AMISOM ayaa Uganda ku ammaanay sida ay ciidamada militariga Soomaaliya ugala qayb qaateen sugidda ammaanka dalka. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shaacisay in caabuqa coronavirus oo sidoo kalena loo yaqaano COVID-19 uu yahay mid faafa. si aad gacan uga geysato ka hortagga cudurka COVID-19 oo ah virus si ba'an u haleela neefmareenka, si joogto ah u qaad tallaabooyinkan. gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq biyo iyo saabuun ugu yaraan muddo 20 ilbiriqsi ah. marka aad hindhisayso amaba aad qufacayso, ku dabool afkaaga xusulkaaga oo laaban amaba isticmaal tiish, kadibna ku rid weelka qashinka oo daboolan. gacmahana iska dhaq. ha taabanin indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga. si joogto ah u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto adigoo adeegsanaya fayras dile. iska ilaali taabashada dadka jiran. joog gurigaaga haddii aad xanuunsan tahay. haddii aad isku aragto qufac, qandho amaba neef qabasho, fadlan si dhaqso ah u gaar goob caafimaad. haddii aad u baahato macluumaad dheeri ah oo ku saabsan coronavirus, fadlan la xiriir rugta caafimaad ee kuugu dhow. ka feejignow coronavirus. wafdi heer sare ah oo ka socda howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM oo uu hogaaminayo taliyaha ciidamada AMISOM Sareeye Gudimoode Indegeye ayaa booqday magaalada Dhuusamareeb oo ah xarunta dawlad goboleedka Galmudug ee Soomaaliya si ay u qiimeeyaan daryeelka iyo u diyaarinta howleed ee howlwadeennada si loo sugo amniga doorashada deegaanadaasi. wafdigan ayaa booqday saldhigga howlgalka ee hore ee AMISOM ee magaalada Dhuusamareeb oo ah goob doorasho oo ku taala magaalada, waxayna kadib kulan ay albaabada u xiran yihiin la qaateen madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo taliyayaasha sarsare ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee SNA. taliyaha ciidamada AMISOM General Indegeye oo hadlay kulamada kadib ayaa sheegay in ay aad ula dhacsan yihiin heerka diyaargarowga doorashooyinka, wuxuuna ku booriyey labada ciidan ee ammaanka ee Soomaaliya iyo howlwadeennada AMISOM in ay sii laba jibaaraan dadaalkooda si loo hubiyo in doorashada ay ku dhacdo jawi ammaan ah iyadoo oo aan wax carqalad ah la gelin. We came here also to meet with local administrations, with our SNA brothers, to interact how we could enhance and accelerate our joint operation. We were very lucky. We had been received by His Excellency, the President of Galmudug. He briefed us about the security situation, and he assured that the security situation is under control. General Indegeye ayaa ku booriyey ciidamada militariga iyo booliska AMISOM ee la geeyey aaggaasi in ay sare u qaadaan iskaashiga dhexdooda ah si loo xaqiijiyo in howlgalka uu gaaro yoolkiisa. I also came here to boost the morale of our troops and to enhance coordination between AMISOM police and AMISOM military components. We gave them some advice to see how better coordinate to move forward in their main tasks to secure Somali election. taliyaha booliska AMISOM kaaliyaha kormeeraha guud ee booliska Agostina Magnus Kale ayaa faahfaahin ka bixiyey horumarka ay gaareen ciidanka booliska AMISOM ee dhawaan la geeyay Dhuusamareeb. Kale ayaa xusay in ciidamadu ay si wanaagsan u dhaxgaleen hay'adaha amniga ee maxalliga ah si ay u sugaan amniga doorashooyinka.
magaalada Dhuusamareeb oo ah xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxa ay hoos tagtaa aagga mas'uuliyadda ee qaybta afraad ee AMISOM oo ay xarunteedu tahay magaalada Beledweyne oo ka mid ah dowlad goboleedka Hirshabelle. taliyaha qaybta afraad ee AMISOM Cornel Xasan Jaamac Faarax ayaa sheegay in booqashada ay ahayd mid waqtigeeda ku soo beegantay. waxaan u nimidnaa waxa weeyaan inaan aragno xagga amniga inaan aragno iyo doorashooyinka dhulka ka dhacayana inaan aragno amnigii doorashooyinka inaan aragno inaan la kulanno ciidankii xaggan soo degay ee AMISOM tahay inaan aragno oo xaaladda ay ku nool yihiin aragno xerooyinka kale lagu talagalay inta degan iyo inta soo socotaba waan aragnay oo sahan baan ku sameynay. ciidamada aagga shanaad ee howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ee magaalada Jowhar ayaa lagu ammaanay qaadashada door ku dayasho mudan oo ku aadan sugidda amniga doorashada iyo taageeridda dhismaha dowladnimo. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa si rasmi ah u soo dhaweeyay howlo dayactir ah oo lagu sameeyay garoonka diyaaradaha ee Maxamed Deere ee Jowhar taas oo ay iska kaashadeen AMISOM iyo saaxiibada kale. madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku ammaanay AMISOM dadaalada wadajirka ah ee amniga ku saabsan ee ay la wadaan Soomaaliya iyo sugidda doorashada aqalka sare ee dhowaan lasoo gabagabeeyey. madaxweyne ku-xigeenka Dabageed ayaa la kulmay taliyaha aagga shanaad ee AMISOM General Telesfor Brandreka oo ku sugan xarunta ciidamada oo ku taala dhismaha garoonka diyaaradaha ee Jowhar halkaas oo lagu qabtay kulan ay albaabada u xiran yihiin. taliyaha aagga shanaad ee AMISOM General Brandreka ayaa hoosta ka xariiqay guulaha laga gaaray sugidda amniga dowlad goboleedka Hirshabelle iyo yareynta halisaha argagixisada Al-Shabaab ay ku hayaan deegaanada mas'uuliyadooda ee hoos timaado. Le vice-président de l'État de Hirshabelle vient de rendre visite le PC de notre contingent. L'objet de sa visite était d'un message de remerciement à l'endroit de nos troupes, comment ils aident pour le rétablissement de la sécurité dans l'État de Hirshabelle. Et plus particulièrement, comment nos troupes se sont donné corps et âme pour sécuriser les élections qui sont en cours. Les élections sénatoriales. Saraya Guud Brandreka ayaa farta ku fiiqay dadaalada wax ku oolka ah ee hay'adaha ammaanka Soomaaliyeed iyo maamulka deegaanka iyagoo ka shaqaynaya sidii meesha looga saari lahaa halisaha amni loona sugi lahaa amniga wadooyinka muhiimka ah ee ay sahayda u soo marta gobolka. Un autre message aussi, c'était un message de soutien de tous les travaux, de toutes les activités que nous menons dans l'État de Hirshabelle, dans notre secteur de responsabilité qui couvre une partie de l'État de Hirshabelle. Que ce soit les activités pour dégrader la menace Al-Shabaab, que ce soit les activités pour venir en aide à la population de Hirshabelle, que ce soit les activités pour améliorer les infrastructures de l'État de Hirshabelle. kadib shir heer sare ah ayaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle waxa uu daah furay dhabaha dib u dayactirka lagu sameeyay ee ay diyaaradaha ka duulaan ee garoonka diyaaradaha ee Maxamed Deere ee magaalada Jowhar. Aujourd'hui, il a eu l'occasion d'ouvrir l'activité qui est d'une grande importance, l'activité qu'on a fait, c'est-à-dire l'agrandissement de la piste de l'aéroport de Jowhar et Yafird. Auparavant, l'aéroport ne pouvait qu'accueillir les hélicoptères. Et pour le moment, après l'agrandissement de la piste, c'est-à-dire qu'il peut accueillir n'importe quel avion, même des cargos. Ils viennent avec des conteneurs. Donc, c'est une infrastructure qui peut même servir pour les avions au niveau international. Saraya Guud Brandreka ayaa caddeeyay in dadaalada AMISOM ee sii wadida dhismaha awoodaha iyo sare u qaadida kobaca aqooneed ee booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ay sii socon doonaan iyadoo loo marayo tababaro iyo la talin. On a
eu l'occasion aussi de mener d'autres activités pour soutenir les forces de sécurité de l'État de Hirshabelle et les forces de sécurité de la Somalie. Entre autres, comme les formations que nous dispensons à l'endroit des forces de sécurité de Hirshabelle pour accroître leurs capacités opérationnelles, pour qu'ils se préparent à prendre en charge plus tard en charge la responsabilité de la sécurité quand la mission ne sera pas là. gudaha magaalada Jowhar, Amisom iyo ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa fuliyay roondooyin wadajir ah ee amniga oo looga dan leeyahay xaqiijinta ammaanka shacabka iyo wadooyinka sahayda soo marto. ergeyga gaarka ah ee gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee Amisom Danjire Francisca Madier ayaa dowladda Uganda ku amaanay sii wadista dadaalada xasilinta Soomaaliya iyo kala qayb qaadashada ciidamada ammaanka Soomaaliya si loo sugo amniga Soomaaliya. ergeyga gaarka ah ee howlgalka midowga Afrika ayaa hadal ka jeediyay munaasabad ay martigeliyeen qaybta booliska Uganda ee Amisom iyada oo la xusayo sanad guradii 59aad ee xorriyadda Uganda. Danjire Francisca Madier ayaa khudbadiisa kaga dhawaajiyay in ciidamada difaaca Uganda ay gogasha u xaareen in Amisom ay dhisanto iyagoo sii ahaan doona qayb ka mid ah awoodda xooggan si ay Soomaaliya deganaansho u hesho. Uganda was the first TCC to send troops to AMISOM in 2007. That opened up space for others to follow. And since then, they have made a significant contribution to peace enforcement and peace building in Somalia, particularly in Mogadishu and Middle and Lower Shabelle. It will be noted that the situation in and around Mogadishu is very different today from what it was almost 15 years ago when the mission first came into this country. There is visible progress and development that has seen the return of Somalia from diaspora, the Somalis from diaspora, international missions and agencies, and evidently both the airport is today one of the busiest in Eastern Africa. Whereas these attainments are a collective effort of several players, it should be pointed out that it is also because of the benefits from the sacrifices of the UPDF. wakiilka midowga Afrika ayaa bogaadiyay shaqada ciidamada Uganda iyo ciidamada booliska ee Uganda oo keenay saraakiil qayb ka ah ciidanka booliska isagoo sheegay in ay muujiyeen xirfad heer sare ah iyo geesinimo la xiriirta dagaalka ka dhanka ah kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab taasi oo keentay in dalka uu helo xoogaa xasilooni ah. taliyaha ciidamada booliska Amisom ahna kaaliyaha guud Agostina Magnus ayaa bogaadin heer sare ah u soo jeediyay dhammaan saraakiisha booliska iyo militariga kuwaasi oo naftooda ku waayay raadinta nabad iyo xasilooni ka hirgasha Soomaaliya. taliyaha ciidamada booliska ee ka socda Uganda ee la shaqeeya qaramada midoobay Agbus Kotu ayaa uga mahadceliyay ragga iyo haweenka ka tirsan ciidanka Uganda sida ay u xaqiijiyeen nabadda iyo xasiloonida ka jirta dalkooda Uganda iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika. As one of the troop and the police contributing countries, Uganda is glad to be making its share in the contribution in the implementation of AMISOM mandate. I want to salute all the men and women of the Uganda Armed Forces who continue to work tirelessly to ensure that peace and stability back at home and in the continent, including Somalia, somehow paid ultimate price. sanad gurida maalinta xorriyadda Uganda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ka kala socday hay'adaha saaxiibada caalamka ah oo ay ku jirto agaasimaha midowga Afrika ee maareynta
khilaafaadka oo ka tirsan waaxda arrimaha siyaasadda iyo amniga Fiona Lorton iyo madax kale oo dhammaantood ka tirsan howlgalka midooda Afrika ee AMISOM. howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa bilado iyo shahaadooyin ay ku mutaysteen doorka ay ka qaateen nabad dhisidda ee iminka ka socda Soomaaliya darteed guddoonsiiyey askarta Uganda. askarta oo ka socotay guutada 29aad ayaa waxaa lagu guddoonsiiyey bilado xaflada uu guddoomiyey taliyaha ciidamada AMISOM sareeye guudimoode Indegeye ayna ka soo qayb galeen saraakiil sarsare oo military ah oo ka socday AMISOM iyo taliyaha guutada ciidamada Uganda ee Soomaaliya sareeye guud Don William Nabasa. ciidamadan oo ku soo biiray howlgalka bishii December 2019 iyaga oo hoos tagaya taliska gaashaanle sare Edward Kadu ayaa la filayaa in howlgalka laga bedelo kadib kolkii ay dhammaysteen wakhtigii loogu talagalay joogitaankooda Soomaaliya, waxaana lagu bedeli doonaa guutada 32aad oo uu taliye u yahay gaashaanle sare Jonathan Okoj Ochom. sareeye guud Indegeye ayaa ammaanay askarta kuwaas oo loo xil saaray in ay ammaan ka dhigeen magaalo xeebeedka Barawe iyo nawaaxigeeda, wuxuuna ku ammaanay sida ay ugu dhabar adeegeen hirgelinta howlgalka. The troops of Battle Group 13th have served continuously with resilience and unwavering courage. This was despite the vulnerabilities and difficult terrain, as well as the unfavorable climate conditions in the area of responsibility. For these, we as AMISOM gracefully decorate you with well-deserved AMISOM medals. iyada oo la raacayo habraacyada adag ee COVID-19 keliya qayb ka mid ah ciidamada ayaa ka qayb qaatay munaasabad astaan ahayd oo lagu qabtay xarunta taliska guutada Uganda ee magaalada Muqdisho. sareeye guud Indegeye waxa uu si gaar ah u bogaadiyey askartii geeriyootay iyaga oo gudanaya waajibaadkooda, adkaysigooda iyo geesinimadooda aan lexleexadka lahayn oo ay ku xaqiijiyeen nabadda iyo xasiloonida in ay ku soo noqoto Soomaaliya. Allow me to pay special tribute to our gallant soldiers who lost their lives in their efforts to help restore peace in Somalia. Their lives have not been lost in vain, as remarkable stability has been achieved in this country. guutada 29aad ayaa lagu aqoonsaday dadaalkii wadajirka ahaa ee ay la sameeyeen ciidamada ammaanka Soomaaliya sidii ay ammaan uga dhigeen magaalada Barawe, waxa ayna qayb ka ahaayeen weerarkii military ee Al-Shabaab looga qabsaday Janaale horaantii 2020. The period of 1 year in this mission area has been quite testing and challenging. Experience in the outbreak of COVID-19 pandemic and other operational hazards. ka sokow qaaditaanka weeraradii military ee Al-Shabaab lagu weeqay, askartu waxa ay sidoo kale gacan ka geysteen in la kasbado taageerada bulshooyinka deegaanka iyaga oo hirgeliyey mashaariic saameyn degdeg ah leh sida ku deeqista qalabka waxbarasho iyo qalabka ka hortagga COVID-19 iyo sahay kale oo dhinaca nadaafadda ah oo la siiyey bulshada. dib u dhiska jidka weyn ee isku xira Imbresa iyo Barawe iyo ka nadiifinta meelaha ay mas'uulka ka ahaayeen waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka iyada oo waliba ay jirto caqabadihii uu la yimid COVID-19. Battle Group 30 exhibited a high degree of intrepidity during their tour of duty. Congratulations upon the successful accomplishment of your mission, Battle Group 30. Your contribution to the peace and stability in Benadir and some parts of Rwashabel, as well as Somalia at large, is unquestionable.
sareeya guute Nabasa waxa uu goor dambe guddoomiyey xafladda xil wareejinta ahayd taas oo Colonel Kadu uu ku wareejiyey xilka gaashaanle sare Ochom si uu xilkiisa ugu guto si awood leh. gaashaanle sare Jonathan Ochom ayaa tibaaxay rajada uu ka qabo in uu ka shaqeeyo Soomaaliya 12 bilood ee soo socda isaga oo ku shaqeynaya xilka cusub ee loo magacaabay. Conte Kosa, I thank you for your wide and detailed orientation guidance that you rendered to me with my team of advanced team on arrival based on Sector 1 security, public relations, command and control coordination. On all levels, I take this opportunity and honor to accept to take over from Command Battle Group 30 all responsibilities within area of operation as Command Battle Group 33. You, my team, the work has begun now. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Hiil Walaal oo aan idinku soo gudbino wararka iyo warbixinada ku saabsan dadaalada howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ku taageero dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shaacisay in caabuqa coronavirus oo sidoo kalena loo yaqaano COVID-19 uu yahay mid faafa. si aad gacan uga geysato ka hortagga cudurka COVID-19 oo ah virus si ba'an u haleela neefmareenka, si joogto ah u qaad tallaabooyinkan. gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq biyo iyo saabuun ugu yaraan muddo 20 ilbiriqsi ah. marka aad hindhisayso amaba aad qufacayso, ku dabool afkaaga xusulkaaga oo laaban amaba isticmaal tiish, kadibna ku rid weelka qashinka oo daboolan. gacmahana iska dhaq. ha taabanin indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga. si joogto ah u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto adigoo adeegsanaya fayras dile. iska ilaali taabashada dadka jiran. joog gurigaaga haddii aad xanuunsan tahay. haddii aad isku aragto qufac, qandho amaba neef qabasho, fadlan si dhaqso ah u gaar goob caafimaad. haddii aad u baahato macluumaad dheeri ah oo ku saabsan coronavirus, fadlan la xiriir rugta caafimaad ee kuugu dhow. ka feejignow coronavirus.